gabdhahan sidan loo galayo horta gabdha caafimaad qaba waay sababta ay sidan u sameeynayaanna ka waran waxa sidan loo galayo waa gabar weyn dhashay walaal waaye waan qabnaa waliba waxay noqon doontaa gabadheena ka waran hadii aan ku dhaho gabar ay hooyo dhashay oo waliba dhalinyaro Assalaamu calaykum nabad fiirsade muuqaalkan hadii nabad uu kugu soo gaaro waxaan rabaa inaad like saartid si saaxiibo badan ugu gaaro siina share garay si fariintan ay u gaarto dad badan oo raba inay sameeyaan dhaqamada noocan oo kala oo u daran sharafteena diinteena iyo waliba Soomaalinimadeena aad u mahadsantahay maalmaha social media waxa ku soo batay gaar ahaan aalada TikTok dhalinyaro gabdhaha u isticmaalaya inay views helaan ma xuma in views la helo laakiin waxay views ka ku raadiyaan qaab xun oo waliba midii ugu liidatay ee qof uu sameyn karo maxay soo sameyn jirtay dhaqamada hadda aad sameynaysid maalinka gaaris aysan lahayn ayaad xasuusan doontaa ee maanta waa dhowdahay aniga ma rabo inaan ku fogaado laakiin gabdhahan sidan loo galayo horta gabdha caafimaad qaba waay tusaale hadii ay xanuunsanaan lahaayeen gabar xanuunsan qof inta waqti uu geliyo kadibna muuqaal ma la soo duubayo gabdhahan way caafimaad qabaan sababta ay sidan u sameynayaanna waa in rakaata lagu haysto waayo gabar ogolaanaysa ma jirto iyadoo caafimaad qabta in sharafta hooyada sharafta walaalka sharafta aabaha iyo sharafta reerkaaga oo dhan ku cayaar war waa la gartay sharaf xumaan doortay oo caqliga la iga maandooriyay sharaf xumaan doortay waa la qaatay laakiin sidee u ogolaan kartaa adigoo gabar 20 jira in nin facaaga oo adiga ka tilaabsado war waxyaabaha qaar wax macquul galaya ma dhalinyaradan kaliya dhibaato ma laha anaga hal maalin waa laga yaabaa xumaan inaad sameyso caqliga lagaaga xado laakiin maalin walba in gabdhaha dhan sharaftooda aad dishid adigana taada aad dishid tan familkaagana aad dishid waxa kaaga wanaagsan in hal maalin aad dul qaadato wax walba oo kugu sameyn karo oo kugu sameeyo maanta gabar qof dhibaateynaya cid u dul qaadanaysa male war waalidkaaga inta sharaftooda ku dheeli lahayd waxa kaaga wanaagsan inaad gudgashid waayo gabar inta la 20 jir 20 sano wax la soo siinayay oo reer dhan sharaftooda ay tahay berina la rabo in la guursado hadii ka waran sharafteeda iyadoo lagu ciyaarayo meelaha la wareejiyo gabar aad tahay ixtiraam mudan tahay sharaf mudan tahay dhalinyaradeena waxaan rabaa inay ka digtoonaadaan wallahi billahi Soomaalida qof walbo fikir la imaada way daawadaan adigana maanta fikir hada la imaatid waa lagu daawanaya si lamid ah marka ficil walbo xun social media report aan wada saarno aad u maasantiin muuqaalkan hadii nabad ku daawatay oo inta aad soo gaartay saaxiib wanaagsan ayaa tahay waxaan ka codsanayaa inaad si share gareysid saaxiibadana la wadaagtid dadka muuqaalkan sameynayana intaan waad sameyseen waxaan idin ka codsanayaa inta aad ka wada bixisaan kadibna aad iska dhaaftaan qof walbo sameynayana wada jir aan uga wada hortagno aad u maasantiin bye bye